ciidamada Israa'iil ayaa shalay duqeyn cirka ku dilay laba nin oo kamid ah shaqaalaha gargaarka ee ka shaqeeya Gaza gaar ahaan hay'adda cuntooyinka ka soo ururisa dunida ee loo yaqaan World Central Kitchen. Bayaan ka soo baxay militariga Israa'iil ayaa lagu sheegay in mid kamid ah labada qof ee la dilay uu ka qayb galay weerarkii 7 bishii Oktoobar ee sanadkii 2023. Israa'iil ma aysan sheegin wax cadeyn ah oo muujinaya inuu ka qayb ahaa weerarkii 7 Oktoobar. Qoyska Ahmed Casmi Qadiix ayaa beeniyay eedaha Israa'iil kuna tilmaamay been abuur ay ku xalaaleysteen dilkiisa, waxayna sheegeen inuu ahaa injineer noloshiisa u huray howlaha samafalka ee Gaza. Baabuur ay la socdeen isagoo qof kale Falastiiniga ahaa ee la dilay ayaa lagu dhuftay gantaal xilli ay marayeen gudaha degmada Khan Younis ee koonfurta Gaza. World Central Kitchen waxay xaqiijisay weerarka cirka ahaa, waxayna sheegtay inaysan waxba kala soconin in shaqaalaheedu ay ku lug lahaayeen weerarkii 7 Oktoobar. Hay'addan samafalka ayaa dhanka kale sheegtay inay hakinayso howlaheeda gargaarka ay ka wado marinka Gaza. Saraakiisha caafimaadka Gaza waxay sheegeen in weerarkaas lagu dilay ilaa iyo 5 kamid ah shaqaalaha gargaarka ee Gaza. Goor dambe oo xalay ahayd ay hay'adda caalamiga ee dhanka gargaarka ee Save the Children shaacisay in mid kamid ah shaqaalaheeda oo lagu magacaabo Ahmed Faisal Isliim oo 29 jir ahaan lagu dilay duqeyn dhanka cirka oo Israa'iil ku qaaday Khan Younis maalintii shalay.